waxa laga yaabaa in dadka qaarkii ay uun dhegta ka maqlaan ama ay arkaan dad kooxo iyo shakhsi uu inta darmo u fidsado uun si u jimicsanaya kuwa uu qaarkood aad moodo inay cibaadaysanayaan. haddaba waa maxay yoogadu? xaggaysa ka soo ibaxday? maxayse dadka qaarkood ee u dhuun daluula arrimaha yoogadu ay ku sheegeen? waa mawduuc aan haddaba aan si kooban ugu eegayno barnaamijka ogaalka dunida ee toddobaadkan. yoogada asalkeeda waxaa la sheegaa in ay ka soo iibbaxday bariga qaaradda Aasiya, gaar ahaan dalka Hindiya. saas oo ay tahana waxay durba si xoog leh uga fidda caalamka iyadoo loo arko inay waxtar leedahay. yoogada waxaa la sheegaa inay markeedii hore ahayd jimicsi jireed oo keli ah, balse markii dambe la xiriiriyay khushuuc iyo cibaado inta lagu guda jiro samaynta yoogada. aasaaska yoogada waxaa la tilmaamaa in uu muran ka taagan yahay halka ay dhab ahaan ku qotonto. taariikhdu qaar waxay tilmaamtaa in yoogadu 3,000 oo sano ay bilaabatay iyadoo dhowr nooc u qaybsami jirtay. Swami Vivekananda wuxuu ahaa nin loo tixgeliyay yoogada ka oo noolaa bartamihii qarnigii 18aad ilaa bilowgii qarnigii 19aad. wuxuu ahaa Hindi ku dhashay Narendra Datta. wuxuu ka mid ahaa xeer diimeedyadii ugu magac weynaa qarnigii 19aad ee jiray. waxaa sidoo kale la sheegay in aad loogu xurmeeyo heerka uu gaarsiiyay diinta Buddhismka, heer ay la darajo noqoto diimaha ugu waaweyn caalamka ka jira. yoogada maanta caalamka hore maray iyo reer galbeedka waxaa loo arkaa in jimicsi jir iyo maskax ahaaneed ay tahay, balse Swami ujeedadiisii ugu weynayd waxay ahayd inuu faafiyo diintiisa sida ay aaminsan yihiin dadka u dhown daluula mawduuca la xiriira diimaha Aasiyaanka. haweeneyda wax ka qorta arrimaha cilmi nafsiga ee la yiraahdo Linda Mintel mar ay ka hadlaysay yoogada waxay ku tilmaamtay mid ku salaysan diinta Buddhismka ee aan rumaysnayn hal ilaah oo kaliya, waana aragti argagax leh oo rumaysan jiritaanka ilaahyo badan, ayay tiri. qarnigii 11aad aqoonyahankii reer Iiraan ee la oran jiray Abu Rayhan al-Biruni ayaa tegay dalka Hindiya, halka uu ku noolaa muddo 12 sano. waxaa la sheegay in luuqadda Carabiga iyo Faarsiga u rogay dhaqanadii Hindida. farsamadaha uu aadka ula dhacayna waxaa ka mid ahayd aragtida yoogada uu aad u soo jiidatay, gaar ahaan meel isku xirka taa oo la ekaatay qalwada suufiyada. kolkii uu ku noqday dhulkiisii isagoo wata buug ay ku qoran yihiin dhaqanada yoogada, waxaa dagaalka la horyimid culimadii Islaamka, gaar ahaan Sunniyiintii, kuwa oo ogsoonaa inay tahay caqiido laga soo minguuriyay sanab caabudyadii reer Hindiya. hay-adda ugu sareysa culimada dalka Malaysia sanadku markuu ahaa 2008 waxay soo saareen fatwo lagu mamnuucayo samaynta yoogada, iyagoo ku sababayay arrintaasi inay tahay ciyaar xiriir leh diinta Buddhismka. sidaasi si la mid ah dalka Indonesia waxay mamnuuceen samaynta yoogada, iyagoo sheegay inaysan ahayn ciyaar jimicsi jir ahaaneed ee ay tahay caqiido ay aaminsan yihiin dadka Hinduismka caabuda ama haysta diinta Buddhismka. dalal ay ka mid yihiin Turkiga iyo Masar ayaa iyaguna siyaabo kala duwan mowqif isku mid ah uga qaatay, walow aan fatwooyin rasmi ahayn oo gabi ahaanba lagu mamnuucayo yoogada laga soo saarin dalalkaasi. qaabka ay haddaba reer galbeedku yoogada u qaateen ee dadku badankiisu yaqaanaan waa midka jimicsiga ah. tan labaad ee ay ka qaateen waa ta loo yaqaano maskax dejinta ee qofku doonayo inuu daalka iyo mashquulka saaran kaga yareeyo isagoo isticmaalaya neef qaadashada. tusaale ahaan in qofku 2 daqiiqo oo neef qaadasho ah sameeyo isagoo sanka ka qaadanaya, taas oo la runsan yahay inay maskaxdu u baahan tahay si ay u hesho deganaan oo isku buuqii ku furnaa kaga nafisto. 2 daqiiqo waxaa qofka shardi u ah in maskaxda uu u diido in ay si kale u fakirto. midda labaad ee ugu dambaysa waa mid salka ku haysa diinta Buddhismka, waana qaabka uu qofku muddo badan u baxsanaanayo ama uu u maqnaanayo. habdhaqankan waxaa loo yaqaanaa yama. yamadu waa qaab loo dhaqmo kolka lagu guda jiro samaynta yoogada. waxaa sharti u ah in fadhiga lagu halaysdaabsado si deganaan lehna neefta loo qaato.
tan ugu xiisaha badan ayaa in qofku uu aaminsan yahay in xiriir uu la yeelanayo awood isaga ka saraysa, waana sababta dadka qaarkii ay ugu tilmaameen in ay tahay diintii dijaalka.